waa wareey waa wareey waa wareey mhm waa wareey marka waxaan leenahay dad qof kastoo baydhabo joogo oo maamulkaas iyo lafta galeen iyo sida u dhaqmaayo ku qanacsan adeer haddaa rabtid inaad warkaa ku hadashid aan kor u qaadno aan maqalno haddaa rabtid baydhabo ka tag wadamo kala tag eelahay sooma joogaan america iyo australia iyo canada iyo yurub iyo sooma joogaan ha hadda shirar ha qabtaan oo ha yidhaahdaan ii sheeg buura kaba iyo waxa ka socdo sax ma aha lafta gareena ka saxan eelahay haddaan nahay laftaas ka nahay hadhahaan ha soo sheegaan dadkaas hurriyaddooda ay haystaan hadalkay ku hadlaana inaan qiimeyno oga maalmo wadwadno way dhici kartaa laakiin waxa waaye ninka ka soo hadlo baydhabo oo lafta gareenaan taageersanahay maxamed waxa ku hadlay walaalkii wuxuu sheegaya waxba kama jiraan adeer ma aan dameer ciyey baa tahay kasoo qaad ma lahan warkaaga taasna waqti inaan geliyo ma rabin laakiin dad baa laga yaabaa inaan ku kalsoomo tan labaad haddaan u guda galo dadkayga badinkooda dad wax aqriya ma ahan waxbay dhegeystaan waxbay daawadaan ma og tahay maamulkan la yidhaahdo south west of somalia ciidan uu leeyahay maxkamad uu leeyahay wasaarada buu leeyahay waxyaalo badan uu leeyahay 7 sano soo shaqaynayay muxuu qabtay magaca koonfur galbeedna maxaa ku soo xarooday ma isweydiiseen laysma weydiin waxaa la arkaa laamigan jidka soddonka maro oo baydhabo hadduu ilaahay kuu roon yahay midkan oo tago ii sheeg alaxmaar tago intaas baa la arkaa kan bangiga dhexe waa markii ugu dambeysay xamar ka imaanayo oo bangiga dhexe hortiisa maraayo oo garaashka iikow lagu baxsi soo marayay ilaa waxa waaye imaanaya fardoodka ma dhisneen markaan ogaa kan ka baxayay ii sheeg busteejidii magaalada muqdisho xirqaadkii labaad oo gadaal loo soo raray neeshinka horumaraysay ilaa shariif gacmi ay tegaysay waa iyadana ma ogeen in la habeeyo ma ogeen taageero rabtaa waxaa ku taageero rabtaa laamiyada la dhisay waxaa ku taageero rabtaa duqow in lasoo qabto oo in la buubuuniyo waxaa ku taageero rabtaa shiniyey in $200 la siiyo isbaaro ay keenka koynay kida adeer waxaasoo dhan sax waaye laakiin markii run ay tahay anigoo dhan waa wada taageeraynaa laakiin been cid ay taageerayso ma lahan saad og tihiin wiil marka guri uu ku dhasho ama aroos iyo wax uu ku jiro dad imaadaa jiro gabyo ciddaas waxay yihiin iyo waxaysan ahaynba ku tilmaamo oo lacag ku qaato adeer fanaaniinta heesaayo hadday runta hadday ku heesaan aniga waa taageeraynaa waa fanaaniin koonfur galbeed waaye waa beri lafta garan markuu ordo iyaga way joogayaan laakiin runta ha ku heesaano runtuna ha ku hadlaano intaas kadib waxaan leeyahay ma og tahay horta in miisaaniyadda lacagaha koonfur galbeed soo galo taageerada caalamiga oo ay bixiyaan lambar 1 ay ka tahay UN lambar 2 ay ka tahay AU lambar 3 ay ka tahay World Bank iyo asxaabta caalamiga sida Turkiga iyo lacagaha ay bixiyaan koonfur galbeed ma og tahay lacagtaas in ay gaarayso 9.8 milyan ma og tahay in lacagtaas koonfur galbeed gacanta u gashay laamigina waxa waaye waa og tahay ma isagana xaaladiisa dalka kale la dhisay muxuu yahay ii sheeg awasharo markaan saas ugu digaanjiyo waxa waaye baydhabo waxa waaye koonfur galbeed kama tirsano waan ognahay dhinaca goobguduud buuraha markaan saas u dhaaftidna waa og tahay baydhabo ma joogtid buura kaba baydhabo inta u dhaxaysana waxaanba ogaaba waa state kale inuu marka shaqayn jiray waxyaalahaas dhan way jiraan 39.8 milyan ma keliya ku kumaya waxaa jiro oo meeshan kala ka maqan oo aan sheegin lacaga kala jirto canshuuraha ganaxyada shatiyada koonfur galbeed qabteeda oo waxa waaye dhaqaalaha ka soo xaroodo intuu aadaa ma isweydiisay isma aadan weydiinin miisaaniyadda gudaha maamulka koonfur galbeed intee la eg tahay ma og tahay kanada waxaan kuu soo sheegay 39.8 milyan oo waxa waaye qoladan hadda aan kuu soo tiriyay sida UN-ka AU World Bank iyo Turkiya iyo asxaabo kale waxa waaye caalamiga ay bixiyaan iyo hay'adaha kale intaasaan kuu soo sheegay keliya soo maaha waxaa jirto aadan ogeyn ama aad og tahay 68.5 milyan Turkiga keligiisa dowladda Soomaaliya siiyo dowladda Soomaaliya waxa waaye maxay ku bixisaa waxaa lagu dagaajiyaa dowladnimada waxaa lagu taageeraa federalismka si dadka iyo looga dhaadhiciyo waa koonfur galbeed miisaaniyad sanaday qaadataa
miisaaniyad oo sanad lay qaadataa. Do you know that? oo waxa waaye 39.8 milyan oo dadkan kusoo tiriyey UN iyo AU iyo World Bank iyo taasna ka bannaan tahay. tan oo aan kuu sheegayo afgooye baraho marko tallaabo kastoo la qaado daafeed waa ilaa koonfur galbeed meeshii yar ay dhaqdhaqaaqaanba laagaha ka soo xarooda ilaa hadlaysa ma sheegin. marka waxaa laga yaabaa in niyadaada ay ku jirto ciidan lacagaa la siiyaa, shaqaalaha mishaara la siiyaa, maxkamad iyo cadaalad iyo garsoor baa shaqeeya oo lacago mishaar ay qaataan. adeer ma aan waxaa jiro wax la yiraahdo gargaarka caalamiga qaramada madoobe. fahmaysaa? justiceka dhan iyagaa naga taageero, ii sheeg cadaaladda iyo garsoorka iyagaa naga taageero, lacagaha bannaankay ka yihiin. ma fahmaysaa? marka waxaasoo dhan isweydiinayso ciidankan ingiriiska kuwa tababaraya iyo mushaaradkooda bixinaya waan ogeyn. adeer ma aan lacagahaas intay aadaan, lacagahaas intay aadaan ma isweydiisay? ma koonfur galbeed lafta garan inuu sii dhiso, in dadkeeda uu jecel yahay qadiyadda oo horumarinta koonfur galbeed ay ka go-an tahay miyuu rabaa? saas macnaa saas darteeda uu leeyahay ani meelaan aaday ma lahan waa jooga. hadda saas ma ahan. baydhabo keliya wax laga qabtay lacagahan soo sheegana ma aragtay sanadkii lacagahan soo sheegay sanadkii way bixeen. fahmaysaa? adeerow lacagtaas lacag koonfur galbeed loogu shaqeeyo ma sheegin ismikaarada dadka lacagta ugu soo dhacdo raashinka iyo waxyaalahan hay-adaha bixiyaan, hay-ad kastoo imaado waa dheel iyo barnaamij kale inay waxaasoo dhan waa ognahay. laakiin lacagaha waaweyn hay-adaha caalamiga ay soo saareen mobile baad haysataa gal qor soo ogow miisaaniyad koonfur galbeed soo ogow. fahmaysaa? sida aan kuu sheegay hadda UN-ka AU World Bank iyo Turkiya iyo lacagaha bixiyaan waa qiimeynta hadda aan ku aqrinayo waa qiimeynta 2024-25 waay. ma fahmaysaa? adeer laba isma saarno. dalka haddaa jeceshahay aniguba waa jecelnahay. waa ogtili waliba eray olko sadegeesood olko sadegeesooda nagadya la erigowdhe hata dadka oo mayleeris wal akhriga korna meelugas iyo hashushukaaya inta iriida ku dhaas mayleeris dadka kale oo tufka qaado korna tufateed yo qaadadan dadka kale bay dhowriyo naftirjo waa very important waaye dalbadu ku ka hadan mayleeris walyaalaha meel ku socodana kulay waa dadka hal la shaqeeyo dadka dalka badbaadi fado hal la shaqeeyo kaase marka harin adiina safka hata dadka ka jar isbedel doonka diniga ku gal lanka odaalayahay male lan hata ka erahay male mayleeris harin baa waxa sameeyay harin baa saas oo harin waxa waay dad yar waay. fahmaysaa? qabiil kastoo digil imrifil ah ana horeyaan u sheegay 5 qof meesha ka joogto waxa waay harin 5 qof ka joogto. laakiin lafta garan isaa jecel isaa ku faraxsan in la yiraahdo harin harin si uu ku qasbado